Siminaar ka soconaya muddo 4 maalin ah magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa lagu tababarayay ciidamada booliska Soomaaliyeed ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo doorka ay ka qaadan karaan ciidanka booliska Soomaaliyeed kaasi oo ay bixinayeen saraakiil ka socda hoggaanka tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Munaasabadda tababarkan lagu soo xiriyay cutubyo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiil ka socda ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka. Ugu horeyn waxaa ka hadlay taliyaha saldhigga magaalada Beledweyne Laba Xidigle Muuse Salaad Wehliye oo faahfaahin ka bixiyay inta uu socday tababarkan ay cid bixisay. Mudane gudoomiye muddo 3 maalmood ka hor ah 23 bishan ayaan halkan ka daafurnay seminaarkan ardada hortaada fadhisa ay uga faa'iideysanaysay sidii ay ugu adeegi lahayd bulshada aqoontoodana sare loogu qaadi lahaa. Runtii waxa xusid mudan inaan aniga laftaydu iyo saraakiil kale oo dhammaan saldhigyada Hirshabeelle iyo taliyaasha sarsare qaybaha iyo qaybaha guud intuba ay ka qayb galeen 2 kulan oo kale oo Muqdisho ka dhaceysay nalaguna soo baray waxa halkan lagu baranayo. taasna waxay keenaysaa mar haddii saraakiishii wax xukumaysay si xisaabtanka fulinaysay wax la baray haddana in ardadii aan wax yani saraakiishii la baray aysan isaga fulin ayagiina la baro in isla xisaabtan